بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ثم الصلاة والسلام على محمد سيد الأولين والآخرين الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كان الكافرون والمشركون بعد. إخوتي في الله waxaanu maanta u fadhinaa wareysi kale oo aad muhiim ah maalin kale oo wanaagsan kolka lagu daro inaynu joogno Rochester xaruntii cilmiga caafimaadka oo waliba aanu maanta fursad u yeelanay amba aan nasiib u yeelanay inaan la fadhino Dr. Cadaani Maxamed. marka waxaan jeclaan lahaa marka ugu horreysay inaan ku soo dhaweeyo Dr. Cadaani oo balan weydiiyo qaybo uun ka mid ah taariikhdiisii iyo noloshiisii waxbarashadiisii halkii ka bilaabatay xaggay hadda marsinteena u gudagelin barnaamijyadeena kale. hadaan soo dhawaado. جزاك الله ألف خير. مقعي محمد أحمد عداني واي. أنا الحمد لله وها قري السعودية العربية almost 10 years أدقناي. Then family أنا نكون حاطك إن جوردن. In Jordan أكسب إحنا أمريكان كمان in 2012. الحمد لله إلهي بفضل الله وكرمه. حياتي always easy مهن but dedication and hard work ولو باهي هي حاليا أنا وحقها أرضيها كهاي جامعة مايو كلينيك سكول كو PhD جامعة واقع بحي University of Minnesota Rochester bachelor's in health science but الحمد لله إن شاء الله ما أنت وحى إلهي فضل كيسي إن كرم كيسي أكون برتي أما كفائدة جامعة يوحى كبرت إن شاء الله إن شاء الله. أدبي ما شاء الله هذا الله بيري هذاك بعديس the dedication يو إن هاد worker يعني شقادة إن تقبض إسلام كانت جوكتي يسويها يعني كان نقول إن دنتاد باللوضات سكت قاجتان دنتاد باللوضات سكت سوي وشقادة إن PhD قسم صدق كان جارهان Mayo Graduate School وحول أنتي هذه وين نقولارن مركها أنت هذا رسمة صورة قليل محا بروسكي حاجات مرتي صح education صح مريكن كما كان هذا سبحان الله اللغة الإنجليش ما خاني محاحص طبعا على مدى وحدي جرت أتيت جنت أدرس كذا half hour نص ساعة لأن وافهم ويل صومالي الله ويترجم almost 10 years أكسوري so لغته يقول أكيد high school كميو high school أكبحي بدو حالي له اللغة هذا week واي جامعة مجلي كتير إن لغة هذا أكيد سجل إنجليش so إن جامعة امتحان كجامعة وين وجلاين كامتحان كسر كباس واي because لغة الله بحر so during that time محو هاي لغة أكيد school هاي half-run education أقله 2 summers كدكتور لغة إنجليش ككبرته then community college أقله أو هاي Rochester Community Technical College لابد سنة دمية أو health sciences أو general during that time اللغة الإنجليش ما شاء الله وفعنيت وسوسعته then transfer student أنا transfer student مكان نقودي السيد مبهند امتحان ACT exam لكن سكور في عنه سكور في عنه أوباح انتهي إن كوباسيت then University of Minnesota Rochester الله حاجة أو كتاب downtown أفر سنة كده لابد سنة وحير دان دي بقول لهم هاثرون education إنه adult education adult education واي قارب بدنا جيران أو سكول كذا هالكن مقالة دينا أو لغاية بس ده حفر سنة ودينا كجيران محيا هاي الحكمة دي هذا لابد سمسركيات كيوب قد بتي محات سكوا كلا تانينا صح هاثرون education وحاوي لغة والجو برتا هي also career تذكر إيمان أو high school كل مين وعلى جبرتا أنا ماشي متوقع career high school كل لغة week وجهد so a lot of English class dadka inay ogaadaan markay haadron galayaan hadafkii u galayaan haddii raba inay course qaataan ama cilmi bartaan cilmigaas inay adkeeyaan important hadda luqada rabtid luqad course ina concentration ku samaysatid so marka waxa xasab goolka qofkii waay anina waa ogaay inay muxuu ahay Saudi iyo Jordan school ku soo dhigtay always but waxa waa barrier ku wuxuu ahay luqada so focus concentration as in luqad all courses luqada la qaatay English كو حر في عناد الحمد لله مكان community college قاعد يعني مركز كان 6 سنة 4 سنة فردية وحويان ثلاثة فوكس كوديان
يعني halkay targetku aanay garanayn integrating also waxaa waaye in la ogaado anoo yaraa iskuulkaas ka waxaa jiray 21-22 so marka 21-22 weli ardaya ahay oo wax yar can focus a lot of people iskuulka wuxuu galan eego dad maasha Allah family qabo so marka sometimes ma la focus gareey kara iskuulka iyo family ha so marka taas way sometimes dadka markay time helaan way ka bixi karaan insha Allah masha Allah kadib university Minnesota tagtay 4 sano samaysay yes so 4 sano markaa ka baxay University of Minnesota Rochester ana ku jiro University of Minnesota Rochester waxaa jeclaad research fahamsa so marka waxaa way wuxuu fiican yahay college University of Minnesota Rochester may u leedahay adoo arday research macallin dakaatiro oo may ku jiro baaxtin training ku siika so ano galaaska la ka bixisa labka tagaysa experiment sameeysa iyo mouse models iyo zebrafish so marka fursad fiican caadi ah so programka ko aan ku bilaabo waxa uu ahaa work study student so waxa way some students heli karo adoo arday they pay you adoo college ku jiro so doctor ama macallin arday u baahan ala shaqeeysa ardayda muxuu ahay adin payment helisa time kaas wuxuu ahay more experience marka dhameystay program la galay oo muxuu ahay new surf inta aanu graduate new surf wuxuu ahay 3 months summer school amal ahay oo meeyo isna research and bahth way so marka ka baxay labadan two research iyo credit ka ku histay college ka dhan qualified me in a application u sameeyo oo grab lahay barnaamijyada graduate research employment program grab so labo year way oo full paid position after college agadi karta dadka gal waxaa dadka rabo inay bahth sameeyaan physician rabo inay noqdaan any health related qofka rabo 2 years or so grab program to sameeyo another program in like prep is similar way summer school amal way train ku siya so labadan program marka sameeyay I had a choice waxa aadi karta dental school medical school nashartay local experience so then an application as a Mayo Clinic PhD program it's a 5 years PhD program full paid stipend everything basically how I PhD thesis as a so marka adoo lagu beegareynay schoolka dhan waa laga bixiyay also adino stipend lagu siiyay so basically waxa way free education way in the same time cilmiga waa kordhisoosa lacagtaanan iyo quudkaadan alxamdulillah waa lagu siiyo so casaafiir baxajar waxda marka waxa way alxamdulillah rabbil alamin waa istikhaaraystay hadda waa ku socdaa 2020 bilaabay hadda alxamdulillah hadda third year hay PhD student insha Allah baxdiga noo socda insha Allah su'aalaha daartiin more su'aalo igdiig intaynan bal waxaan u kaadino tan la xiriida in iskuulku kugu faano amba webka lagu daabacaan ba YouTube amba marar badan aragto screenada jaamacadda dhexdeeda yaacayna magacaaga ka muuqatay sawirkaaga maxaa sabab looga dhigay سؤال حلو جيد سبحان الله دتك sometimes motivation كله باهين أنا always college ما كنت جريء حد PhD حتى always دتك motivation أصلا outspoken representative هاي وان لقطة كله جوا any board meeting لقطة so always مركو هيجو حس لين أكيد أدي سنة كان you know so dad badan oo dhigay sida yani inay iyagu ku isticmaalayaan laakiin school Mayo graduate school oo kala inuu kugu faano is like wax weyn wax alxamdulillah yani hatta muxuu ahay University of Minnesota Rochester hatta basco aragt so kal Mayo hatta University of Minnesota hatta eega hatta qaybka ha so ani dadka ina secret u sheegaa subhanallah casrigan anaka aad joogno dadka qutu waxa ugu noqon kartaa cilmiga bravo cilmiga leedahay qofka dadka ku ixtiraamaan ilmaha yareerka xataa hadda ilmahan oo qudo noqon kartaa waxa xasuustaan dugsiga dhiga weekend dhiga wiil aad dugsiga quraan dhiga weekend wiil oo dugsiga u dhiga oo isaanu suuq ka soo baxayo hooyadiisa istaajiri baawrka macallin soo socdo soo deg macallin baska kugu arkay that's good so subhanallah I want to be a researcher I want to be this already
so marka waxaa ka fahmaysaa علم بارن ربنا النقطة وأستاذ وكل ربنا النقطة ها أنك we have to set by example إيجا صح maybe Mayo Clinic agenda وطان إيجا you know diversity and inclusion goal so it's amazing إيجا how وطان وشو but وش صح هو إنه لو باهي يضيف كنا يسدح قلان إسرعان Absolutely. قفكي معنا لو community اللي حيس اللي قارك إلا صو صار اللي هذا قف كانتي معنو ليه هلا لصعده وهلا قضى يضوح وين absolutely and not only that أنك community دقن سمع لده قدوة example dad حتى أو أرضي أو جامعات قل ربح تقول سو حريرين وكو عاوي dad أجر حتى ميرو بإنه قالوا إلى سو حريرين وكو عاوي CV so I think is a way bigger you know وحبضنا فائدين الحمد لله مرك إلهي بفضل الله وكرمه واي ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله يعني وقيب كم إذا هذيك يوم مثلا برشادة مايو جراديوت سكول يصير أرداد مركاوي مالين برنامج بدنا مايو كبحة like سيدا بريب كشيء سو كلام إن الله دبر كل من حجر برنامج كله سجن رايس أبل لهم رايس أب وامخله أو سجنا إن أرداد الدكسية ده إن دكسية سرك صباح هاي سكول الله وقصميني يعني برنامج سو كله سيد إن بريب كشيء سو كله IMSD مدة هنا جري IMSD وحاج قال أنه 2017 قال 5 years ago IMSD وحاول 2 year program واي وحق لك كرله دتك بريب يو PhD but معلمة IMSD كجرتي وحي إنجليزي محو هاي وحي ده إسكفاديس إسكدجيس واسجل كتو إسكدجيس so market 27 دون قيب كاين برنامج واسجل كتو إسكدجيس the weekly واي from Wednesday from 3:30 to 5 market PhD نخدم program كي base العق أو NIH social واي أردي دورنا فهمت وحالة ده Dean's List Scholarship MSD so العق NIH social واي وحيد علم دورته علم هاس لبسنا extra money لو درا stipend فهمت so والي دورته so MSD نو أكمل هاي concept مركب وإنه research هذا علم بارسين هذا الكاس IMSD concept وحاول والضد وحاول spectrum وحكو جرو college student أكو جرو وحكو جرو grad أكو جرو PhD student أكو جرو after PhD postdoc أكو جرو postdoc ها faculty and professors أكو جرو all in one room سبحان الله تذكر ولا سكفة ديستا هذا ربت سؤال cancer هذا كربت kidney هذا كربت سؤال ولا سكفة ديستا also وحنا بران presentations أسمعنا بحثي أبان ساوس بندقة ها also وحنا بران بحثي على 3 minutes كسو كوبي PhD thesis أو book نلقى خر استعبق أفرق ولا بيجا ها 3 minutes كشرح له بليه training فهمت لأنه وحال ربع علمي قابرني تذكر audience كلغة language كساينس كل حد إنه أشرحنا إنا فهمسي إنا تكف إنا تفوضي سده إنا فضينا وحو مكان زبي كانسر جينيريك وحو إبضن تذكر ما فهمه ويك أرجع مركو وحسنا ترينينج كاسين سيا you also grant لقرا أنا عايش الجران وجران على قراء أو مكان قرتيت وبحثي قالوا له ياهي أنا عايز لعيب كسوشي هذا يعني يكون نشأ so training كقطعتي واسمي لا جرانت قري حتى أنا عايش almost يصل $50,000 خمسة بحثي the most support أنا so all that حكي له training أو IMSD لكن أنا إيشي كنت كقد مكرر صح وين أني advisor كيجي PhD advisor كيجي أني وحاسم يعني project أنا عربي ناس project كيجي أنا أبو شيء وحاول regenerative medicine وحاول طب أو متجدد طب كان new way but the issue وحاول تذكر العقد قبلي insurance قبلها تذكر أن مهلك so مركز بحثي وحاول معلومات بدنا كسوقات وبحثي داودي سيجو علمي سيجو يتذكر سيكو هلايان بحثي PhD thesis كيو كاسو that's very very huge حوين وا إن تنلا حريدة إن مثلا هدي إن topic أقول كله مركز قدمتين جائزة نشأ هيلث انستيتيوت مركز قدمتين أنا محي يعني إمسي قاتين لا أقبله سؤال تيجا برنامج يعني أنا عايش مكان جراند قرتي مرمر وادرسة مرمر ويكون سعوديان وادري ما مو يكون سعوديان so وأذكر بحثرين أنا عايش حد أنا my BI وحاضرني my professor على شبه دكتور كيجي ميل كلا أو Center of Regenerative Medicine راح أحطه إيجا نصوقري إيجا نسوي
eegana soo shaqo inaad PhD samayso oo weliba school sida Mayo Graduate School ku samayso PhD yani weight yani miisaan tee laga leedahay Mayo Clinic waxaa waay number 1 hospital in the United States of America دكتورada caalamka dad ugu khatarsan oo cilmiga barto baxtiga dhan way joogaan collaboration waa la sameeyaa so مثلا ada baaray ani waxa baaraa muxuu ahaay lafaha bada lafaha dibki inta yaali daawada la geliyo doctoriyalka dhan oo cilmigaas qabadan weyna caawi so Mayo Clinic ma sha Allah yani waxa waaye access u leedahay qof kale cilmiga iyo dakaatiradi ardayda so marka ma sha Allah alxamdulillah bifadli Allah wa karamih I'm fortunate in inta ku dhigtay PhD fursad wanaagsan marka dadka anaga isirkeena Soomaalida anaga badan waa ka shaqada badan ka shaqeeya meesha amba ka shaqeyn jiray ardayda meesha joogtay PhD sameeyay amba graduate undergrad ma laha laakiin break ku jiray ka soo baxay University of Minnesota kale intee laga lagu qiyaasay oo Torala from college oo qiimada University of Minnesota qiimada afar soo qaata graduate school soo aaday ama PhD asmeen ma prep ka jiraan ama MSD ka jiraan waxay ku jiraan intee laga lagu qiyaasay صح so typically people waxay dhameeyaan 4 sano jaamacada oo caam 2 to 3 years experience some people masters magister and then PhD all waxa way way fiican tahay total waxay qaadaysaa 4 plus 2 then PhD 5 arday Soomaaliya oo anaga meesha ka nid background kana intee laga oo maan sanadka oh wallahi PhD ga hadda cohort ga ani leeyahay Soomaali but in sha Allah hadafku waxa way ina la helo dad kala badan Soomaali ciisana wadi ka horeeyay Dr. Isa oo ka baxay wuxuu graduate 2018 19 ma sha Allah hadda postdoc NIH oo buxsaday صح ma sha Allah ma sha Allah marka dhalinyarada magaalada joogtay tirada badan ee laga yaabo inay la daala dhacayaan halkay wax ka bilaabi lahaayeen aba University of Minnesota ku jira amba hadda high school ka imanaya University of Minnesota rabay inay galaan maxaad iyaga kuwa ku waran صح خطوات جرينا قفك سمعنا كو academic score كيسنا high ahaado college كي grade كيس because number 1 number 2 dadkina bartaan si loo qoro personal statement waxa lagu dhahaa hal bee sharax xayaatada qoraalku matalayaa qoraal taas to ka muhiimsan ma jirto because ani waxa ku qoray Jordan Saudi waxa dhan waa qoro story in education how so marka ina waxa waa subhanallah ina istusid way ina very good candidate famsa that's the key because sometimes score dadka dhan oo soo buuxiyo college high score eegna dadka dhan high score la soo galaan meesha waxay doortaan qof unique oo motivation qabo cilmiga rabna kordhiyo also muxuu ahay oo more diverse background leh marka ani waxaad ahaa maamulka process statement policy waxa qorina dadka camal oo inta deganay iyo oo ku koray camal oo qorin idinka unique background aqoon as Somali soo qoro background iyo waxa ka imaadeen soo marteen iyo waxaas unique most likely adila maka qortay stories adila unique image adila unique iyaga inuu xirana waa uniqueness unique radio yes absolutely marka dad badan oo Soomaaliya magaalada degan maxaa u malaynaysaa inay tahay sababta aan awoodi karin inay education ku galaan amba si badan loogu arag jaamacadaha a lot of reason ajiro most likely waxa waaye waxaa jira lahay barriers luqadda way kamid ahayd ani luqadda ay sometimes environment and situation ki dadka surrounding influence you hada مثلا 10 qof la socdo 10 qof best friendiga oo college rabna مثلا wax rabin ma tagin waligood tagin adina waqtiyada so marka waxa waaye is very important waaye ilmaha habitkan la baro oo hala socdaan dadka ma sha Allah alxamdulillah successful in ku daydaan ay rabaan hadhow insha Allah markaasna waxay rabaan tafawuq taxaddi dhacay tartama dhacay so marka a lot of barriers ajiro oo community sometimes luqadda sometimes waxa ka jiro oo مثلا drugs iyo community waxaasna influence ku sameeyay and low income kaamba iskuul waxay ka imanayaan high school wanaagsan charter schools absolutely
ما شاء الله ما شاء الله. then si guud maxaad ku oran lahayd ardayda adduunka oo dhan kaa daawanaya amba Soomaaliya jooga amba Maraykan gudihiisa jooga amba dunida carabta jooga in fursadahan oo kale helin maxaad iyaga ku oran lahayd صح اولا inaad dadka fahamsiinin waaye cilmiga subxaan allah quraanka iyo diinta waa laga amaa so cilmiga always khair adduunkan dhan ilaah subxaanahu wa ta'ala wuxuu dhahay cilmi iyo masjid iyo dhikr allah ugu fiican so marka inaad u samayso cilmigan ilaah dartiis ma aha because inaad lacag raadisid ma aha inaad xayaatada maqlay hal yarkii ha waxaasoo iska imaadaan but motivation ka markuu ilaah ku xiran yahay cilmiga inaad baratid rabtid ilaah dartiisa inaad community inaad faa'iidaysid rabtid waxaas dhan subxaan allah boring min qiis dadaa jira subxaan allah cilmi markay wadaan boring noqdaan marib inaad kamila marka ilaahay saxda ku xiran tahay cilmiga ilaah dartiisa inaad rabtid u baratid community inaad faa'iidaysid rabtid tilqaa'iyan aad boring min qiis because hadaf weyn u sameeyso waxa kale dhan subxaan allah way iska imaadaan marka taas way message very important message meesha joogtidba cilmigaada cilmigiina qofka hawato khayrka uu jooga insha Allah bas opportunities-na qofka markuu arko inuu ka faa'iideysto way fiican tahay inta waxaan ku soo gabagabeynaa waraysigan la yeeshay Maxamed Cadaani Dr. Maxamed Cadaani intaanu markale dib u kulmi doono waa Dr. Cilmi Ilaahi khiyaaray isma dhaaf assalaamu calaykum